السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدي الله كرال نقض وحن سمينا لوجو أنا استعمالنا برنامج كليرا دواد وهرين وحصفرتا واد دوكيومنتيسكا ووجرا كمبيوتر كذا نوع علبوي هاي دي 19 يا دو 16 يا دو 7 يا هو اسلامت اوكي marka sidaan kale u soo furato loogada aan sameynayna anaga waa loogo circle ko waxa soo gashanaysa shape insert ya tagaysa kadibna groupkaas shape iska dhex tagaysa kadibna midkaas ovalka loo yaqaan ama ellipsiga ayaa soo qaadanaysa kaliya marka ku siido shape-ka sida loo sawiro left mouse ka qabanaysa waa sawiraysa laakiin kan waxa ku dartaa shift balas left mouse ka isla qabo kadibna saas u sawir shape sidaas marka u sawirto waxa tagtaa shape format waxa la yiraahdaa jira oo shape ku keensanayo kadibna waxa ka tagaysaa groupkaas la yiraahdo shape style-ka meeshaas ay ku samaysan tahay shape fill-ka oo garaafada ku sawiran tahay tagaysaa waa color-ka gudihiisa lagu shubaaya hadda marka waa noo iska dhigi kartaa shape outline-ka tagaysaa weight-ka waa culays ku yeelanaya ama xajmigiisa kadibna kaasigiisa ay ku qoran tahay ka dhigaysa color ahaan waxa hadda ka dhigtaa kan color blue-ga adiga dooqaad adiga iskale okay qaybtaas marka asaas u diyaariso waxaan rabaa mid kale inaan samaysto meeshii aan tagay insert marka aan tago shape-isan soo qaadanaya mar kale aan sawiranaya haddii rabto kii hadda waa ku biisa kartaa control D laakiin aniga hadda mar kale aan samaysanaya shift aan qabanaya left mouse-ka saas oo kale aan u toosinaya waxaad isku aatinaysaa center-ka oo kale dhaxdo kale kadibna waxaad tagaysaa shape format-ka shape fill-ka hadda waxaan sameynaynaa sidiisa hanoo ahaado laakiin waxaan bedelaynaa outline-ka weight-kiisa ayaan kii hore kala mid dhigaynaa isku color aan ka dhigaynaa color blue-ga qaybtan marka fill-ka waxyaabo badan adiga ka sameyn kara haddii rabto hadda sawir soo gashan kartaa picture aan ku dhifanaynaa icon tusaalahan hadda iska caadiya aan soo gashanaynaa oo book oo kale haddii aan helno iyo wixii la mid ah haddii adiga rabto hadda waxa ku sameyn kartaa calan oo kale ayaa ku sawiri kartaa waa wax adiga hadda u talisid si laakiin aan awoodka uga bixin maadaama dadka qaar in sawiraysan laga yaabo waxaan sameynaynaa hadda calan oo kale ayaan dhexdiisa ku sawiraynaa tagaynaa shape-iska saarankaas waxaan soo qaadanaynaa calamada marada loogu talagalay taas oo kale aan soo qaadanaynaa meeshaan oo kale aan imaanaynaa tusaale ahaan saas oo kale color-keeda waxaan ka dhigaynaa buluug calan no outline aan leenahay meeshii aan hal mar ku laabanaynaa shape-iska tusaalahan waxaan soo qaadanaynaa qaymankaas mid ka mid aan soo qaadanaynaa shift adigoo haya waxaad isku daraysaa shift-ga balas left mouse-ka isla qabanaysaa sameynaysaa saas oo kale ayaan hadda anaga u sameynaynaa waxaan tegaynaa marka shape outline-keeda weight-kan wax yar ku daraynaa weight-kan kaas oo kale ka dhigaynaa color ahaan waxaan ka dhigaynaa color-ka madowga aan ka dhigaynaa hal mar aan zoom-ka soo gelino waxa aan sameynaynaa falaaraha anagoo adeegsanayna falaaraha caadiga ayaan saas oo kale u sameynaynaa haddii rabto inta shape-iska ku laabato ama kan hal mar waxaa sameydaa weight-kiisa wax yar badan waxaan ka dhigaynaa kaas oo kale aan ka dhigaynaa tanna wax yar ku dhaweynaynaa waxaan ku laabanaynaa shape-iska xidig aan ku sameynaynaa xidig ayaan ku dhex sawiraynaa marada dhexdeeda xidig aan u yeelaynaa xidigta color-keeda waxaan ka dhigaynaa cadaan waxaan ka baabiinaynaa waxa la yiraahdo outline shape fill-ku iyo outline-ka inaa kala fahanteen rajayna fill-ku waa color-ka dhexda looga shubayo shape-ka outline-kana waa geesaha banaanka intaas hadda markaan diyaarino waa loogadii iyo icon-kii dhexda uga jiraan diyaarinay waxaan sameynaynaa marka qoraaladii wareegga aad inaan ku qorno aad ila soco meeshaas shayga lagu qoro qoraalada wareegga waxa la yiraahdaa word art waxaa laga helaa insert ayaa tagaysaa groupkaas la yiraahdo textiga meesha ku qoranta word art ayaa tagaysaa kuwan mid ka mid ah qaadanaysaa shaygan hadda isticmaalaysa waxa la yiraahdaa word document ayaa la yiraahdaa waxaa fiicnaad markii hore intaan shaqada bilaabin inaan word document inaan ka wareegno asaga dhan oo 97 aan u wareegno waa version-iskii hore waayo oo la isticmaali jiray say ugu wareegaysaa marka waxaad tagaysaa F12 aad taaban kartaa haddii rabto meeshii save-ka waad tagi kartaa save as daaqadan markaad tagto ayaa wax laga bedbedelaa hadda shaygan waxaan iska dhiganayaa muusigaan dhiganayaa
magacaasaan u deysanayaa meeshaas hoose oo hadda ay ku qoran tahay save as type word documentiga furaysaa lambarka saddexaad aa ka dhigaysaa word 97 up to 2003 documentskaasaa dooranaysa ayagaa ku fiicnaa marka la sameynayo word artiga versionis hore waa okay hadda markay sidaas kuu tahay marka koowaadna inaad saa samaystaa fiican waa isla mid marka u wareegto waxaa ku laabanaysaa insartiga ku laabanaysaa qaybtii word artiga tegaysaa word artiga soo furaysaa waxaa arki kartaa isbedel inuu jiro sidii hore iyo sidaan hadda inaysa isku mid ahayn markaa loogada samaynayso waxaa la doortaa SL3gaasa qaadanaysaa kadibna waxaa kusoo qoraysaa wixii adiga aad rabtid hadda aniga caps logan shidanayaa qoraalkaasaan rabaa inaan ku qoro tusaale ahaan IT oo kale intaas marka aan dhameeyo qoraalkaas kadibna farahaan haddaan doono waa bedeli karaa arial oo kale oo khafiif aan ka dhiganayaa kadibna okay aan leeyahay marka koowaad oo sawir ama word art aad soo gelido ma ogola inaad maamushid say wax la maamuli kara u dhigaysaa qaybtaas word artiga formatkiisa tegaysaa meeshaas ay ku qoran tahay wrap text wrap maayo wrap text aa la leeyahay sida rayd oo kale iyo wrap text markaad tiraahdo in front of text yaa ku dhifanaysaa qoraalku marka hadda wuxuu u diyaarsan inaad maamuli karto geeskaas qabanaysa hoos u jiidaysa hadda wax yarkan waa diidan yahay meeshaas hoos fiiray accessibility ayaa xogaan available ah maadaama waxaan already kliga ku siinaysaa kadibna qoraalada meeshaas hadda ku qoran waa fahma documentigan waa only format marka functionalitygiisa xadidan uu leeyahay hadda 2013 iyo waxaas isticmaalay adiga waxaas ma arkaysid laakiin 19ka aad isticmaalaysid in aragtaa suuragala marka convertialada bes oo documentiga hore u laabanaysaa kan marka kaliya ku siiso xogaa geesiisa tagaysaa kaliya ku siinaysaa wax mushkil ah malaha waa qabanaysaa saas oo kale hoos u jiidaysa badhankaas oo kale waxay la iska wareejinaysaa saa u aragtid segmentiska qaybaha geesaha uu ka kooban yahay waa soo jiidaysaa kan oo kale tagaysaa isagana waa soo jiidaysaa waa fududaynayna move toolka qaadanaysaa meeshaas kora geynaysaa okay mar walba adigu inta aad iska leedahay uu kaaga toosayaa waa ku sii wadi kartaa hawsha waa kasii qaban kartaa qiyaas ahaan qoraaladaada intay la egyihiin ay ku xiraa doontaa siduu kan yahay okay intaas marka aan diyaarino waxaan rabaa qayb hoose inaan ayadana hoostaan hore soo aan ku qoro mar kale marka ma soo qoraayo maxaan sameynayaa control D aan leeyahay tanaan ku biisanayaa kadibna waxaan tagayaa shape formatka meeshaas waa ka wareeji kartaa rotate laakiin si ka fudud aan ku hayaa shape format tagaysaa qaybtaas hadda rotating ayaa ku dhifanaysaa flip aa leedahay marka vertical kaas ku dhifanaysaa kadib move toolka isticmaalaysaa saas oo kale qoraalka adiga u soo jiidaysaa hadda xoogaa qoraalkan aniga ma rabo qoraal kale ayaan u baahanahay meesha ku qorto maxaa sameynaysaa kaliya ku siinaysaa amase waxaa sameynaysaa right kaliya leedahay edit text yaa leedahay waa isla mid qoraalkaas marka waa dooranaysaa hadduu daaqad ku geeyo hadduu meeshan ku keeno waa isla mid waxaan sameynayaa waxaa rabtaa ku qoranaysaa tusaale ahaan hadda aniga qoraalkii ii socday counting tusaale ahaan and management waxaan usoo gaabinaya MGT okay intaas marka aad diyaariso waxaan rabaa xidigo kale inaan geesaha geliyo hal mar kaliya ku siinaya waxyar geeskana waxyar jag ku siinayaa qaybtaas tusaale ahaan waxyar aan xagga jag hal mar jag usoo siinaya okay intaas marka aad sidaas u diyaariso waxaan sameynayaa xidigo kale ayaan labada gees ka dhigayaa waxaan tagayaa insert shapeskan tagayaa kadibna qaybtaas starska shan geeskaas ayaan soo qaadanayaa left mouse kan qabanayaa si fudud maxaan sameynayaa waa sawiranayaa shape filkiisaan tagayaa colorkii markaas aad rabtaa kasoo dhiganaysaa outline-ka haddaad rabto waa ka xiri kartaa hal xaba haddaad diyaarsato ka kalena inuu dhib kugu hayo lama rabo control D aa leedahay markaa koobiyeysato waxaa sameynaysaa shift iyo left mouse-ka isla qabanaysaa shiftidu waxay sameydaa shayga straight inuu ku socdo oo uu toosnaaday suuragelinaya waana qalqaloocan shayga okay qof walba inuu intaas diyaari karaan rajeynaya waa wax yar sahlan oo dhib badnayn qoraaladan hadda haddii isku dhow yihiin labada qoraal waa kala siki kartaa wax mushkil ah ma lahan adigoo falaarahada caadiga adeegsanaya kan asagana kaliya ku siinaysaa
waxay asagana waa kartaa wax mushkil ah malahan kaas okay sidaas marka loogada u diyaariso haddii aad rabto qaybtan hoose inaad wax ku qorqortid oo macnaha qoraal kala keentid calaamadda rainbow-ka iyo keeni karta insert aad tagaysaa groupkii hadda shaybiska calaamadaha lagu sameeyo loogada waa taas hadda waa sawiro kartaa haddaad rabtid hadda laakiin aniga caadiyan joos ahaan uma baahni qoraal haddaa u baahan tahay reed keligaa leedahay aad tagaysa waa kusoo qori kartaa hadda aniga hawshaas oo dhan uma baahni waxaan ugu dambays rabaa inaan ku fahansiiyo loogada markay sidaan tahay waxaa la rabaa inaad group isku weerto see group uga dhigaysaa home tab aad tagaysaa groupkaas u dambeeyo editka meeshaas ay ku qoran tahay hadda select ayaa soo furaysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa select object waxaad tagaysaa gees ka mida loogadaada ayaa tagaysaa oo ka fogaanaysaa left mouse-ka qabanaysaa waa jiidaysaa ilaa iyo dhammaadka kulligood marka ay sidaan kugu doormaan waxaad samaynaysaa right keligaa ku leedahay kadibna group inaad ila socotaan rajeynayaa kadibna waxaa kasii dooranaysaa meeshaas ay ku qoran tahay group intaas marka aad sidaas u diyaariso hadda loogadaadi waa wax isku xiran wa okay ugu dambeyn loogada markaa sidaan u diyaariso waxaad samaysan kartaa sawiraa ka qaadanaysaa waxaad tegaysaa start button aad tegaysaa snapping ayaa ku qoraysaa kadibna qaybta snapping toolka ayaa soo qaadanaysaa new aa leedahay waa shay sawir lagu qaado waay kan geeskaas koraa ka tegaysaa saas oo kale weliba hal mar ku celin new aan dhahno waxaa fiican inaad ku dhawaato inta aad ku dhawaa kartid saas oo kale okay kadib qaybtan markaasaa sawir uga qaado waa save garaysanaysaa file aad tegaysaa save as meelaa ku save garaysanaysaa waxaan leenahay hadda annaga logo tusaale ahaan image waxaan ku save garaynaynaa qaybtaas muusiga dhexdiisaan dhiganaynaa kadibna save aan leenahay haddaa waxyaabahan xirto kan hadda minimize iska dhahdo logadan sameynay computer aan soo furaynaa qaybta muusigiska ayaan dhex dhignay haddaba kaad marka logadan diyaarinaa ma arkaysaa sidaas oo kale waxaa la rabaa sambal logo qofku inuu diyaari karo dhammaan ardada laga sugaayo iyo dadka kale oo YouTube-kan ku xiran oo ayagana cilmi ahaan u daawanaya kulligiin waa salaamantiin insha Allah cashar kale ayaa noo balan haddii Alla